warsame jiradeeda kaartuna saddex boqol lix iyo toban jiradeeda kaartuna saddex boqol lix iyo toban codee naqaadka iyo guulaha waaweyn ee libinta aadmiga hormoodka ka noqon kara waxaa kow ka adkeynta amniga iyo nabadgelyada taasina waxay suuragal ka dhigtaa higsiga mustaqbalka nololeed ee ummadi ku horumarto Somaliland waxay kaga tilmaaman tahay dalalka mandaqada geeska xasiloonida iyo deganaanshaha ay ku canaamaashay wuxuuna geedi socodka siyaasadeed ee dalkani soo maray marxalad cakiran oo ay kaga soo gudubtay wadatashi isku tanaasul iyo wax wada qabsi waxa daafurmay rajo iyo ididiilo ay keentay dimuqraadiyaddii dalkani ka hirgashay taasi oo fursad u noqotay cid kasta oo damac iyo han siyaasadeed leh tani markii la qeexay waqtiga ay dalka ka dhacayso doorashooyinka golayaasha deegaanku waxaa dalka ka bilaabantay hirda siyaasadeed kala xulasho iyo isa soo sharaxaad waxaana soo baxay dad fara badan oo u taagan doorashooyinka golayaasha deegaanka kuwaasi oo ka kala sharaxan xisbiyada iyo ururada dalka isla markaana aan u gudboonayn waayo aragnimo iyo xirfadahooda shaqo waxaana muhiima inay ummaddu fahanto oo ay iyadu xil iska saarto cidda ay dooranaysaa inay noqoto cid wax u qaban karta xaqiiqduse waxay tahay dalka yaa wax tari kara caasimadda hargeysa ee waddooyinkeedu gurmadka u baahan yihiin ayaa dejin kara qorshe caalamiya oo lagu maamulo isla markaana ka badqaba kanyan xeerada daamurka iyo jayga maalmaha ku siman ee cimrigoodu gaaban yihiin lehna aqoon buuxda oo qorshayn kara halka heerka iyo habka waddo ee ay yeelan karto caasimadii aqoonta duruusan iyo waayo-aragnimada ballaadhan ee musharaxa injineer yuusuf warsame saciid waxay rajeeyey didiilo u tahay inta ku baraarugsan bilic muuqaal qurxinta caasimadda hargeysa inay u baahan tahay qorshe sugan iyo duubuqaabayn ballaadhan barnaamij filimeedkan waxaynu ku lafaguri doonaa wadamada iyo injineer yuusuf warsame saciid ka soo shaqeeyey dhismayaasha dhugashada milila cadhaayaha u roon ee uu sameeyey balse intaasoo dhan ka hor waa kuma yuusuf warsame saciid waxaan ku dhashay anigu hargeysa sekataliire marka iskuulkii ugu hooseeyey waxaan ka galay sheekh bashiir oo barigaa la odhan jiray fisher school deetana waxaan ka galay tree schoolka deetana waxaan galay technical institute-ka cilmigii magaalada hargeysa markaa intaasaa ugu badnayd muddadaas deeta kooris baan tegey oo ah mihnada inta badan aan nolosheeda ugu jeclaan ku shaqaysto oo engineer architecta inaan markaa aan u baxay aan soo bartay waddankii baan ku soo noqday xamar baa laga shaqaynayey waxaan ka shaqaynayay markaa wakaaladda dhismaha soomaaliyeed kismaayo maraa ilaa beledweyne inta udhexaysa mid aan mashruuc ku lahayn ma jiro waxaan galay London University College oo baranayay sida horumarka guriyeynta magaalada looga shaqeeyo waxaan u guuray Oxford Polytechnic waxaan baranayay naqshadda magaalada ayaa dadana aan u guuray Norway oo muddo badan joogay iyadoo qudheeda markaa waxaan ku jiray inaan sii wado cilmiga magaalada 10 sano waxaan ka shaqeynayay dawladda hoose ee Oslo ee Norway markaa waxaan u maleynayaa inaan u soo diyaar garoobay inaan haddii awde cilmi magaalo jiro inaan dee aan ku afci karo hoygaygii gurigaygii magaaladeydii caasimadii waddankayga ee Hargeysa doorashada golaha deegaanka ee dalka ka dhici doonta waxaa ku tartamaya 5 urur siyaasadeed iyo 2 xisbi qaran kuwaasi oo tirada guud ee musharaxiinta caasimadda ka tartamaya ay dhan yihiin 175 musharax urur kastana wuxuu soo sharaxay 25 musharax oo u dhigma xildhibaanada muddo dhaafay ee fadhiya kuraasta golaha deegaanka caasimadda injineer yuusuf warsame saciid oo ka mid ah 175 musharax ee caasimadda ka tartamaya ayaa u tartamaya xisbiga kulmiye dadka inta taqaana waxay ku tuhunsan yihiin karti iyo aqoon fog
waa sidee qorshaha ugu fudud ee caasimadda Hargeysa bilicdeeda adeegeeda iyo nadaafadeeda lagu sugi karaa waxay u baahan tahay qorsho magaalo asarkeedaba waxa weeyaan 5 ilaa 10 sanadood wax keer lama qorsheeyo waayo wax taagan maaha waa wax koraysa markii hore magaalada waxay ahayd ilaa orientalka waa inta nimka laamiyada waaweyn la Ingiriisku oo naqshadeeyay inta kale waa India line iyo intii absoo ku noolaa amba oo ku shaqeynaya shacabka ahaa oo wada laami ahaa inta kale marka waxa weeyaan sidii aynu u deganay guri Soomaaligi ayuu ahaa cidina inoo qorshay imkana sidii waynu u degay marka waa arkaysaa inay hawl badan oo meesha uu soo galay dhibaato badan keenaya way inta hore dad u fiirsato magaalo ay waqtahay ilaa orientalka iyo waxa ka hooseeya masaajidkii shaacigu horeeya marka hadaan qorsheynin dhibaatadeeda marka dib ku soo baxaysa waxaynu xaliilaynaa marka waa daadkeedii waa xashiishkeedii waa laamideedii waa baabuurteedii way badan tahay intaasina waxay u baahanayd markii horena in la saxay ahayd imika laakiin hawl badan bay u baahantay dayactir badan bay u baahantay fikrad badan bay u baahantay inagoo isla kaashano baynu mushkilada ka baxay ku dooro kartidiisa aqoontiisa iyo waayo-aragnimadiisa Yuusuf Warsame Saciid oo ku xeel dheer isla markaana aqoontiisu u sahli karto in galgalin maran oo indhaha u daran uu u bedeli karo magaalo qurxoon oo dhismayaasheeda iyo wadooyinkeeduba si caalami ah ay u kala soocan yihiin dalka Djibouti Yuusuf Warsame Saciid dhismayaal caynkeeya ayuu ka sameeyay Djibouti waxay ugu yeedheen inay magaalo qurxiyo marka dhowr iyo toban dawaaradood iyo malaha 2-3 meelood oo jirdooyinka lagu raaxaystaa way ku faanaan baan ayaan nasiib u helay inaan sameeyo gadariyada ku dheeda in yar baan walantaan balaanka la eegay marka kuleba waa mehnada ku jiray 50 sanadood oo aan waliba jecelahaynaa Yuusuf Warsame Saciid oo ka soo shaqeeyay in ka badan 20 wadan sida dalka Norway oo in ka badan 10 sano uu dawladda hoose ee caasimadda Oslo la shaqeynayay waxa kale oo dhismayaal taariikhi ah uu ka sameeyay dalal ay ka mid yihiin Djibouti, Sweden, Canada, UK, Denmark iyo Finland injineer Yuusuf Warsame Saciid inuu ka shaqeeyo dalka horumarkiisa isla mar ahaantaana qorsheeyo dhismayaal tayo iyo bilicba leh waxa ku simi kartaa aqoonta duruqsan ee injineerku leeyahay horta mid baan ogahay waxa aynu nasiib u yeelnay programkan ay adduunka ku shaqeysa GIS-ka oo waliba hay'addan habitat ee deegaanku ay noo samaysay marka waa qalab lagu maamuli karo waxa badan oo ay dawladda hoose u baahan tahay waxa ka mid ah cashuurta guri walba uu sawiraya halkiisa marka waanun inaad cashuurtii oo aan in badan marka la ururin inaad soo ururiso waxa ka mid ah inaad u isticmaali karto qalabka inaad ku qorshayso magaaladii waxa ka mid ah inaad wadooyinkii ku qorsheyn karto waxa ka mid ah inaad magacyo u sameyn karto streetka waxa ka mid ah sida adduunyada kale xitaa inaad post system aad gurigii walba adrees u leeyahay warqadda adduunyada lagaga soo dirayay lagu keeno inuu qalabkaas oo dhan aad ku isticmaali karayso halgankii dheeraa ee dalkan iyo dadkan lagu xoreeyay qof kasta oo maanta bulshada qaybaheeda kala duwan maamuus iyo milga kulay wuxuu ka soo qaatay qayb Yuusuf Warsame Saciid kaalintii uu halgankii ku lahaa Allahu naxariistay marxuum Cabdilaahi Askar oo ka hadlaya taageerida dhaqaale ee Yuusuf Warsame Saciid halgankii qalaala uu ku lahaa wuxuu yiri Yuusuf Warsame Saciid waxa hadaba noogu kharashko noogu ladan labada nin ee wax kala wada Salebaan iyo Yuusuf Warsame Saciid iigaani labadaas waa niman injineera dalka dhismaa ka socda had iyo goor kharashka iyo hadda keerinta iyo meelaha midka meelka qabadka halkaasa haweenka oo lafdabar u ah dhinacyada kala duwan ee nolosha bulsho isla markaana fikirkooda si xor ah u cabiri kara ayaa Marwe Adna Aadan Ismaaciil oo ka mid ah bahweynta dumarka ee la tilmaansan karo aqoontooda ayaa amar munaasabad balaaran ay ka hadlaysay laabsan kara Yuusuf Warsame Saciid haddii xilka bulshadu ay u igmato
suldaanka guud ee beelaha Somaliland Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir ayaa isagoo danaynaya quruxda iyo bilicda caasimadda Hargeysa inay noqoto mid wadamada geeska ka muuqato oo ka mudha wuxuu si buuxda dadka reer Hargeysa ugu soo jeediyay inay codkooda siiyaan musharaxa Yuusuf Warsame Saciid maanta Yuusuf isu sheegay qabadkiisa iyo waxbarashadiisa أنا waxaan qabaa inuu yahay maayarkii ku habboonaa reer Hargeysa inuu doortaan intii xaafad keliya kumaan tala gelin inay codkooda siisay Hargeysa oo dhan xaafadeeda inay codka siiyaan baa waajib waxaana wadnaa mustaqbalkii ummadan iyo generationka ilka soo kacaya gudoomiyaha xisbiga talada haya ee kulmiye Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay inay xisbi ahaan soo sharaxeen Yuusuf Warsame Saciid maanta waa ka qolihii ugu weynaa Somaliland dadkii taageerayaashiisi way qaadi laadahay ilaa banaanka ayaa la tuban yahay isagu wuu soo baxay kulmiyana wuu soo saaray wuxuuna noqonayaa insha Allah mayor lama hadiya ayuu noqonayaa soo sidaa ma aha Yuusuf waa dardaara waa loo dhameeyay waanu hubnaa inuu caasimadda uu qurxin doona injineer kaliya ma aha waa injineer architect waxa weeye waa farshaxan waa nin quruxda iyo wanaag iyo magaalooyinka qurxintooda ku takhasusay weeyaan waynu codaynaynaa soo ma aha wassalaamu calaykum Yuusuf Warsame Saciid codsiyo iyo talooyin badan oo dadka uu ka helay inuu isku soo taago doorashada golaha deegaanka ayaa keentay inuu xisbiga kulmiye iska sharaxo isla mar ahaantaana maayarka caasimadda u tartamo waxaan run ah oo lagama maarmaan ah inaynu isu sheegno waxaynu doonaynaa inaynu aad wax uga bedelo nidaamkeena dawladeed oo halka uu ku dhamaada ay tahay nidaamka musharaxiinta local governmentka aynu u sharaxayno local governmentku waa halka u dambaysa xundurta u dambaysa ee asaasiga ay ku dambaynayso nidaamka dawladnimadu waa halka ay ku dambayso madaxweynuhu si guud buu wax u xukumaa wasiirku si guud buu wax u xukumaa laakiin meeyarka golaha deegaanku waa halka nolosha bulshadu ay taallo oo ah hoygooda dariiqooda cusbitaalkooda iskuulkooda nadaafadooda dad waayo araga oo aqoon leh oo aan baahiye haynin oo ah injineer Yuusuf Warsame Saciid ayaynu u baahan musharaxa golaha deegaanka ee xisbiga kulmiye isla mar ahaantaana u taagan maayarnimada Yuusuf Warsame Saciid waxa uu bulshada qeybaheeda kala duwan u ballan qaadaya in codka ay horeen ugu bedeli doono waxtar muuqda oo uu magaalada Hargeysa bilicdeeda iyo adeegyadeeda kala duwan ba xil iska saari doono intii karaankiisa ah waxaan ballan qaadayaa inaan wixii aan aqoon leeyahay iyo wixii aan awood leeyahayba biidnillaahi kariim inaan kala xidhin si daacada oo haddii buhuri kalgacaylana ugu shaqeeyo deegaankayga iyo dadkayga